السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخياري دمان سو دواada mar kale waa video kale oo gaaban oo aan ku eegi doono insha Allah taala laysanka Canada iyo laysanka USA ama Mareykanka xagga CDL-ka ama truck driving laysanka warka ugu horeeya aan rabo inaan idin siiyo waxa waaye waxaan ognahay dhalinyaro fara badan in ay ku soo wajahan yihiin ama ay yimaadaan ama ay joogaanba dalka Canada oo ay ku dareynayaan in ay soo koraan traaga information badanna aysan ka haynin haddaba waxaan rabaa inaan maanta idinla wadaago sida ugu fudud ee laysanka Canada loo qaato iyo waxa uu kaga duwan yahay soo qaadashada laysanka traaga ee dalka Mareykanka haddii aan idinka sii hor dhaco labada wadan aad iyo aad ay isugu dhow yihiin labada hal laysan ayaan ku wadi kartaa labada wadanba isaga gooshi kartaa marka wax kala duwanaansho oo fara badan ma jirayso except laba shay oo kale bas bay ku kala duwanaan karaan so tan hore hadaan u galno Canada oo kale aan fiirino shuruudaha ugu horeeya requirements halka idinka muuqata requirements ama waxyaabaha shuruudaha ah number 1 waxay yiraahdeen waa inaad you have to be at least 18 years old waa inaad 18 sano jir aad tahay number 2 waxay yiraahdeen you have to hold waa inaad haysataa Canadian license ama driver's license or regular or caadi ah kan gawaarida lagu wado number 3 you have to pass a vision test waa in indhaha laga test gareeyaa qolo kasta lagu sameeyaa saas anaga waana laga qaadaa number 4 waa inaad keentaa valid medical report card ama card caafimaadkaaga ku saabsan waxay ka jagaranayaan indhaha waxay ka jagaranayaan dhagaha waxay ka jagaranayaan jilbahaaga in ay caadi yihiin waxa laga qalqaraacaya waxay ka jagareynayaan maartay dhiikarna qabin inaad sokor qabin in wadnahaaga iyo sababkaaga ay caadi yihiin waxa ka dhageysanay test caadi ka qaadayaan medical card waa inaad keentaa intaas markaa soo dhaaftid ayaa waxa laga rabaa inaad ku baastid knowledge test ama imtixaan laga qaadayo oo DMV-da laga soo qaadayo DMV-da tagaysaa imtixaankii galaysaa book baa lagu soo siinayaa waa akhrisanaysaa marka hore imtixaankaas hadda bariyahan dambe waxa loo helay app baa loo helay oo telefoonka laga isticmaalo ama iPad-kaaga ama computer-kaaga isticmaali karto oo imtixaankii oo qish ah ayaa iska jira oo badanaa ku fududeynaya inaad qaadato laysanka kaas inaad ku soo baastaa imtixaankaas wuxuu ka koobnaanayaa waxa loo yaqaano air brakes-ka iyo general knowledge oo ah imtixaan guud oo su'aalo fara badan lagu weydiinayo iyo tan ugu dambaysa oo ah waxa waaye combination ama isjiidada gaarida isku xiraay in maadaama tareelaha traagaaga aysan isku xirnayn waa in aad combinationka aad ka baastaa sidoo kale marka intaas aad samaysid waxa inaad aadaa school accreditation ama aqoonsi ka haysta wasaaradda dalka Canada school aqoonsi ka haysta waa inaad aadaa schoolkaas markaad soo dhigatid typically waxay qaadataa 3 week ilaa 4 week ayay qaadataa so markaa ka soo baxdid aad soo baastid schoolka ayaa imtixaanka ka qaadayo laysanka ku qaadanayso imtixaankaas kale oo dambe oo laga qaadayo wuxuu ka kooban yahay wax la yiraahdo pre-trip inspection inta safarka galin inspection aad sameynaysid waxaad jagaranaysaa beltska gaariga alternatorka ama diinimada waxaad jagaranaysaa biyaha gaariga motorka waxaad jagaranaysaa oilka waxaad jagaranaysaa taayirada waxaad jagaranaysaa nalalka waxaad jagaranaysaa ama aad ka waramaysaa sida loo jagareeyo tareelahaaga iyo gaarigaaga inta sida uu yahayba pre-trip inspectionka markaa ku baasto ayaa haddana waxaa bilaabaysaa imtixaankii ahaa inaad gadaal gaariga u kaxeyn kartid inaad dhaag gelin kartid meesha wax lagaaga dejinayo iyo in aad parallel parking sameyn kartid laba track kala dhex gelin kartid imtixaankaas si uu isaga yara adag yahay laakiin qofka practice markuu sameeyo uu ka baasi karaa sida loo kala ilmac yahayna 3 week ilaa 4 week bay qaadataa imtixaankaas marka gadaal u kaxayso haddana hore baa ku sugaysa inaad u kaxayso oo gaariga dumarshaha aad wadi kartid haddii kale laysanka waxay kaaga dhufanayaan automatically ayuu wadi karaa soo gaari marshay ama wadi kartid waa wadaysaa
isagana waxay jagareynayaan sida stop signs ku istaagaysid, saa nalalka uga istaagaysid, saa calaamadaha u waardiyeynaysid, sida aad isaga ilaalinaysid gaariga saa u wadaysid hore markaa u wado. Road test ayaa la yidhaahdaa. Marka imtixaankaas ka baastid ayaa kadib waxaa lagu siinayaa laysinkii A-ga ahaa. Haddii aad isweydiinaysaan qarash meeqa iga baxaya oo laysinka aan ku qaadanaya, qarashka gaariga aad ku qaadanayso normally waxa waaye $5,000. waxaadna moodaa in labada dal ay isku mid arrinka ka yihiin, inkastoo oo dalka Mareykanka uu leeyahay loops ama meelo lasoo marmaro oo lacagta in laga bixiyo ay u badan tahay. Qolyo loo tagaa jirto oo lagu calaacalo lacagta laga soo qaato. waxaa jiro qolyo kambaniyada waaweyn haddaa u shaqaysid contract ay kula gelayaan 1 sano oo kale ama 8 bilood oo kale in iyaga moogi meel kale aadan aadaynin, laakiin laysinka aad ku qaadanayso. marka contractigaagii aad gaarto waqtigiina aad iska tagi karto laysinka meesha rabtaa la aadi karto. taas way jirtaa. tan kale way jirtaa oo maaragtay aan idin sheegay lacagahan adiga siyaabo lasaga bixiyaa jirto, laakiin $5,000 way ka siman yihiin labada dal. tan saddexaad oo aan rabo waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin markii aan taabto labada shay aan idin sheegayo waxa waaye Mareykanka license CDL saa u qaadato waa inaad 21 years aa jirtaa. 18 in lagu siiyo dadka hadda way ka fakarayaan, waana laga fadhiyaa waxa ka fadhiya Congress-ka iyo qolyahan shuruucda dejiya ayaa ka fadhiya oo ka sheekaynaya, laakiin weli ma dhamaanin. So 18 ma aha shuruudda, waa inaad jirtaa 21 sano jir waa inaad tahay da'daada ay ku buuxdaa. tan kale ay ku kala duwan yihiin Mareykanka laysinka hore ee gawaarida yaryar inaad haysato qasab kuguma aha. way fiicnaan lahayd inaad haysato oo qof gaari wadi kara inaad tahay, laakiin qasab kuguma aha inaad haysatid laysinka marka hore. labadaas arrin ay ku kala duwan yihiin, laakiin maadaama labada dal ay isku furan yihiin oo laysinka Canada dadka haystana inta ay ku wadaan gawaarida, kuwa Mareykanka haystana xagga ay ku wadaan anaga xuduudda aan goyno, seerahana uu noo kala xirnayn. shuruucda iyo qaadashada laysinka iyo inspectionada iyo gawaarida inta waa isku wada mid, isku dhanna waa laga wada wadaa. kulli midigta laga wadaa, bidixda laga wadaa actually, midigtana marshada lagu geliyaa. ma aha sida Kenya iyo South Africa oo kale, waa ka duwannahay. saas ayay u kala duwan yihiin, laakiin kala duwanaanshaha Canada ayaan xooga saaray because wax saas uma dhexeeyaan labada dal. haddii aad wax su'aala ka qabtaan sida aad laysinka u qaadan lahayd iyo fadlan comment sectionka iigu soo qor. haddii aad su'aal qabtid ama aad wax nagu soo biirinaysid ama aad Canada ku nooshahay oo waxan aad rabtid inaad akhbaar naga siiso, arrinkan waan ku soo dhaweynaynaa. commentiga noogu soo qor insha Allah taala. wixii kale waa isaga iman doonaa. Abdullaahi, assalaamu calaykum waraxmatullah.